fully convinced that this kind of initiative eventually prevents commercial partnership and exchange to provide a strategic contribution to the economic recovery of the country. Somalia needs help and support from its numerous friends, but it should never forget that in the past this country caawimaad iyo taageero ay ka hesho saaxiibadeed waana in ay ogaataa oo aanay ilaawin in waqtigii hore ee la soo dhaafay wadan hormuud u ahaa dhinaca dhaqaalaha was a leading economy in the region. An honor and a privilege to be invited to participate in this special Italian National Day celebration by His Excellency Ambassador Carlo Campanile. Indeed, Somalia and Italy have historic relations which we are working very hard to further with modern partnerships, joint opportunities and many initiatives. Italy remains a solid ally. in aynu isku dhafno fursadaha isla markaana ay hindisayaal badan ay jiraan Talyaanigu wili waa saaxiibkan kaliya ee ka taageera Soomaaliya marka loo eego dhammaan saaxiibada kale ee dibadda waa dalka taageera Soomaaliya si ay markaasi u gaarto horumarka Friend and supporter of Somalia is standing proudly amongst all out friends as a contributor to Somalia's clear progress. dowladda dalka Talyaaniga ayaa iyaduna sanad walba waxa ay tahay dowladda u dabaaldegta 8 bishan ee June oo kale xuska maalinta qaranka ee dalkaasi Talyaaniga oo loo aqoonsaday muddo qarni Maxamed Nuur Macalin Maxamed warbaahinta qaranka Muqdisho DMI